بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى. dhammaantiin jaaliyadda reer howlka xukuumadda Lands ee caalamkan xafladda lagu sameeyay Soomaaliya iyo jaaliyadda kale ee lagu balaaray ee halkan naga soo qayb gashay Turkiga dhammaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. dhammaantii waxaan idinka mahad celinayaa sida fiican ee waqtiga kooban iyo qabanqaabada iyo isxilqaanka samayseen iyadoo waqtiguna koobna oo la dhexamoonayay oo dhulkuna kala fog yahay haddana maamuuska iyo sharafta iyo soo dhaweynta waa idinka mahad celinaya. waxaan kaloo idinka mahad celinayaa xubnahan jaaliyadda Turkiga naga soo qayb galay xafladda oo runtii si gaar ah u mahad celinaya in doora fadhiyey in doorana la sugayay dalka Turkiga waa aad iyo aad loogu dheeryahay ummadda islaamka oo dhan waxaa gaar ahaan inaga reer Somaliland ilaa iyo boqolaal sannadood baa dalkeena maamulkiisii iyo taariikhdiisaba ay Turkiga ku leeyihiin taariikh oo aragtay magaalooyinkeena berbere iyo magaaladii Turkiga iyo dekedaha waaweyn ka dhisan marka taariikhdeena waa taariikh aad iyo aad u dheer waxaana runtii iminkana waa championka dowladda muslimka qolyaha carabta ee marka iyo Turkiga adeegto dowladda tartan baa ka socdo haddii cududda iyo taageerada la isugu wada geyn lahaa weliba sidaa ayuu koob yahay aad iyo aad uga sii ballaarnaan lahaa waana ku hambalyeelaynaa dowladda Turkiga madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan iyo madaxda kaleba kulliba waxaad tirahdeen waan is wareysanaynaa waxay la tahay iminka waraysigii sidii berigii hore maaha waraysigii waxaa dilay Facebook iyo YouTube iyo TV lagaba kuugaa soo horeynayaa oo waxaa lagu reebo soo salaamay waxay bidacaynaadweyn marka laakiin muhiimaddu waxaa weeyaan la isarko oo la sheekaysto oo runtii wixii laysku kordhin karaan isku marka dalkii waxaan ka yimi labadii bisha halkan iminka ilaa 10 cisho ayaan kasoo maqnaa aad iyo aad badan ku wanaagsan maasha allah meel aad iyo aad wanaagsan buu marayay waddankana dee nabadgelyadiisa iyo dowladnimadiisa iyo tacabka dadka ku jiro iyo sida loo shaqaysanayo iyo sida loo mitinayo waa ka warhaysa marka intii aan ka soo maqnaana waftiyo badan iyo madax badan iyo dowlado badan baa runtii intiina dee tegay oo labaab waa diyaar ugu badnaa waxaa ugu muhiimsanee aan oran karo waxaa taagnay arrimihii doorashooyinka oo doodooda ay socotay oo xisbiyadu kala duwanaayeen oo inkana ilaa shaydaa bareed warka la socotay taana waxaan rajaynaynaa in iyadana xal laga gaari doono sidii dhaqanka iyo caadadiina ahaan jirtay waxaa dalkeena aad iyo aad dalkeena ugu baahan yahay midnimo iyo urursanaan iyo mustaqbalka iyo waxaan geysanaya sidaan uga midho dhalina dowladnimadu ma aha waxaan tookaa ku siin oo ehelkaa ku siin oo badkaa ku siin ayaa inaad dowlad noqoto oo xor noqoto oo calan yeelato ay ku siinaysaa marka ummadda reer Somaliland meel gudaha iyo dowladda joogtada waxaan u baahannahay waxaan ku soo tacabnay Somaliland qaranka aynu isla dowladda ku soo dhisay inuu ka midho dhalino oo hareeraha la qabto oo dowladda gudaha
la isgarab taago laga shaqeeyo taa waxaan leeyahay waxaa weeyaan dadka iminka dibadda doorashooyinkii xisbiyadii iyo hawlihii la saaran ku yeesho sidii dhaqaaqoodii hore iyo siday u shaqeyn jireen iyo sidii ay u kaalmeeyeen jecolahay ka jireen iminka waxaad moodaa inay kala xoog weynaatay xisbiyadu iyo xisbiyadu xisbigaa doonto ahaw kaa doonto galo siyaasadda dhinaca doonto ka galo laakiin inaad dowlad ahaato oo qaran ahaato inaad cidna ka bardo cidoo koo fadhiisato maxawayaad ilaasha waayo waxaa mili hore ilaa u naxariistay maxamed ibraahim mar walba waan sheega ka dhegeysta waxaa lagu leeyahay kiiniya iyo sawaaxil iyo aad bay qurux bateeno dowladnimadu waa dowladnimadu waxay ciyaaraan lixdankii markii aynu somalilan xornimada qaadanay waxaynu ahayn dadaan dowladnimada macaada macaanay garanay waa la yaacnay koonfur baynu ku tuuray 30 sannadood dagaal iyo dhibaataa baynu ku faa'iiday iminka waxaynu gacanteena ku haysanaa dowladnimadeena iyo qarannimadeena waxay u baahannahay cidda habeenaya inay ka dhashay markaasaa qabka qofka biniaadamka wuxuu ugu yeerayaa waa inuu qab yeesho waa inuu waxiigsado waa inuu khayrkii la sinaado waa aragteen xamar ama Soomaaliya in badan dowlad iyo gacanka dhibaato badan bay soo mareen inagoo ducayn jirnay waxaan oran jirnay ilaahay ka saaro ilaahay dhulka ka saaro iminka dowladda ka dhalatay siyaasadda arrimaha dibadda waxaa kow ka ah sidii Soomaaliland loola dagaalamayo taasuna runtii xaqiiqa marka lagu hadlayo xaqiiqada wixii laga dhexeeyey maaha toddobaad sano xisayni waxbay naguma darsanay dastuur baynu samaysanay xeero baynu samaysanay dowlad baynu samaysanay kabis baynu samaynay waynu taabnay inay dayna amaanaha aynu hambalyeeyaan bay ahayd inay imika hinaasaana meel lagu ridada saaka ka soo dejiyeen ma ahayn iyagana waxu tari mayso innagana de waxay ugu tahay waxaa la yidhi afxumo nabadna waa kaaga kacaysaa colaadna waa kaaga wanta shalay iyo dabkaad waxay idaacada ku waaseen iyagoo leh waftigii anigu ma hubo laakiin de way ka suurowdaan waftigii ingiriiska ayaa tegey dacwadii ashkitaada gulbay yacni lixdankii raggii aynu isu tagnay ee aynu inoo kuuri waayo taliyaha booliska inayna siiyaan ee dowladda dhan u geynin kuwa iminka jooga baa ka caqligoodu ka sameeya oo halkay marayaan yaa waftimo u imanay iyagoo cagabo ku taagan taa markaa waxaa laydinka baahan yahay xisbigaas oo halkii xisbigaasna ku jira laynagoo baahan waxaa laynoo baahan yahay ficil baa laynooga baahan yahay waxaa laynooga baahan yahay waxaynu ahaan jirnay inay bulsho in dowlad kasta iyo cid kasta xiriir la samaysaan inaad dhaqdhaqaaqa kordhisaan in 4 sannadood ama 3 sannadood ama 5 sannadood dee la doortay oo loo yahay in doorasho kale ka dambayso oo cidda ku xigtana ilaahay loo yahay in saamaynta intaan laga dadka dibadda ay ku yeelato runtii maahayn marka waxaan oran lahaa oo taa runtii ugu celcelinaya waxaa weeye wixii Somaliland loo soo taxay iyo wixii loo soo maray iyo taariikhdeeda waa laga wargeysan yahay imikana waxay la tahay dunidii iyo ummaddii iyo ilaahay aad u nadejiyeyba cid kasta ku khasbaysa inay xiriir nala samayso beriba toddobiyo lixdii markii carabta la isku laayay waxaa la odhan jiray reer miyigeena odhan jiray waxaa la isku leynayaa waa markaa qorta madow leeyahay halka haysanaba carab oo dhan isku dilaysa iminka dhulkeena istaraatiijiga baa diyada dhan isku haysataa oo cid walba u imanaysa marka inagana dee gacanta ku haysano maamulo dhexdeena inoo maamuli mayso askari ajaanibina weligii nooma iman Ethiopia waa jecel lahayn weliga xeel lahayn weliga askari Ethiopian halka ku jecel soo qaatay halka dadkooda weligii khudra halka soo soo qaatay halka koonfur beero meel xamal ilax meel dad bay marayeen marka waxay doonayaan ku filanahay
dowladnimada iyo adkeynteeda waynu ku filana laakiin idinku qurbajoog ha ku dhagabeelina xisbi hebel baa iyo xisbi hebel baa waaye dalkiina u tabca u shaqeeya waxaa aad u tacabtaan u shaqaysaan amrihiisa waa kiyaysa hadday xumaatana dee khasaara baa la wada waxaan intaa u dhaafaya waxaa weeyaan waddanka runtii dee waa kiimika kaftamayaya gudoomiyaha ama wakiilka somaliland ee laaba caslaan markuu dowladdii uu ka muuqan waayo uu cadhoonaya caslaan horta xisbiga kulmiya la yidhaahdo dadkii aasaasay ee sameeyey bilaabay baan ahay oo runtii ninkuna hadduu nin weyn yahay oo magac leeyahay oo siyaasad galo halkuu joogo ama halkan lagu yaqaan inuu ku qalajsto ka midho dhaliyaala loo baahanya waa halka ugu sarraysa marka dowlad buu ka mid noqon waayey iyo liisku soo bixi waayo ay wax ka bedelaysa oo dambeeyey laakiin waxaasoo dhan waxaa ka weyn in midnimada dalka iyo wadajirka la xoojiyo oo aada iyo aada loo xoojiyo weliba dadka kulmiye taageerayaashiisa ahaa ee dabada iyo gudaha ee dabadda jooga waxaa looga baahan yahay soo dhaweyn fara badan iyo inay waxyaalo badan waxaqirsanayo oo kala tabanayo dhamaystiraan oo baahiyaan waxaa aan arkayay magaalooyinkaan soo maray dhulkaan soo maray jaaliyadaha iyo wakiilada iyo xafiisyada iyo waxaad moodaa sidii maxaa la odhan jiray sidii in la yar cuurtayo walixii xusbiga kulmiye taageersan ay u badan yihiin baa laftoodana dadka kale iyo jaaliyadaha iyo dadka kale kusoo dhaweeyo taageerayaasha xisbiyada kale waayo midnibaa la rabaa waxaa la rabaa in dadkooda muuqdo meel walba haddii kale dee waxaad noqonaysaa kulmiye jaanta isu tumayo meedia noqonaysa iyo dhammaantii kasoo qabanqaabayaashaba rag iyo dumar aada iyo aada loo mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi